Hey guys, welcome back to my channel. Videoan gudihiisa waxaan kula wadaagi doonaa 4 application oo ka caawin doona barashada luqadda Englishka. Waliba si bilaash ah. sida ognahay barashada luqadda waxay ka kooban tahay 4 xirfad oo kala ah dhageysiga, ku hadalka, akhrinta iyo waliba qoraalka. Haddaba videoga maanta waxaan kula wadaagi doonaa 4 application oo ka caawin doona 3 kamid ah xirfadaha barashada luqadda Englishka. Application kood waxaa loo yaqaanaa Reddit. Applicationka wuxuu ka caawin doonaa akhriska, waa sida Facebook oo kale. Kaliya wuxuu kaga duwan yahay in posteska dhammaan ay yihiin luqadda Englishka. Qaabkan waxaa ku jira communities fara badan, xitaa waxaa ku jira community Soomaali ah laakiin waxay wax ku soo qoraan luqadda Englishka. Dadka isticmaala applicationka badanaa waxay soo qoraan sheekooyin ayaga ku dhacay, kadib dadka ay weydiiyaan ra'yigooda. Tusaale ahaan waxaa jira community la dhaho ama ayda a-hole erey fiican ma laakiin macnaha guud waxaa waaye aniga miyaa khaldan. Waxay soo qoraan sheekooyin sidan oo kale ah. Hadda qofkan wuxuu dhahay am I the a-hole for leaving my wife over a computer? Ma ku khaldanahay inaa xaaskayga computer dartiis aan uga tago? Qaybta spelling waxaa waaye ciwaanka sheekada. Kadib waa kusii dhufanaysaa. Waxaa kusoo bixi doonta sheekadii oo dhammaystiran. Qaybtaasna waxaa ku arki kartaa commentska dadka ay soo qoreen ayagoo ku cabiraya ra'yigooda. Applicationka wuxuu si weyn u anfacayaa dadka intermediate-ka ah, dadka beginner-ka waxaa laga yaabaa inaysan waxba ka fahmin. Application kale waxaa loo yaqaanaa Google Podcast. Applicationka waxaad ka heli doontaa podcast kala duwan xitaa kaliya ma luqadda Englishka waxaa ka heli kartaa luqado kale sida Carabiga, Turkiga, Isbaanishka. Applicationka saddexaad waa Hello Talk. Appkan wuxuu ka caawin doonaa practice-ka ama inaad ku hadashid luqadda Englishka. Applicationka dadka rooms ama qolal ayay soo fuulaan kadib mowduucay ka discuss gareeyaan. haddii aad ka xishoonaysa ama ka cabsanaysid inaad dad group la hadashid waxaan ku hayaa applicationkan afraad oo aad hal qof la hadli kartid. Appka magaciisuna waa Free for Talk, waxaa kala soo degi kartaa Chromaha. Si lamada sidii Hello Talk waxaa furanaysaa qol laakiin adiga maamulaya meeqa qofood ayaa soo geli karto. Haddaa rabto 2 qofood ka dhigan kartaa adiga qof kale kaliya. That's it for today. waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka faa'iideen. Fadlan channelka subscribe iyo videoga like gareey. Haddii ay jiraan mowduucyo kale oo aad jeceshahay inaan video ka soo sameeyo igu reeb qaybta commentiga. See you in my next video. Bye.